waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal intayda ku xidhan page-kayga iyo youtube-kayga Abshir Joker kusoo dhawaada falaqayntii wararka arrimaha Soomaaliya iyo waliba caalamka qodobada maanta aanu ku soo qadan doono waxaa ka mid noqon doona Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Galbehaare ee gobolka Gado maalmihii ugu dambeeyayna ku sugnaa Jubbaland muxuu halkaasi ka qabanayaa iyo waliba see loo dooranayaa gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii magaalada Galbehaare la soo gudbiyay qodobadaas iyo qodobo kale iyo ra'iisul wasaaruhu halkaas waxa uu joogo ayaad ku maqli doontaan qodobada kale aan idin hayo waxaa ka mid ah qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho oo laga soo sheegayo faahfaahin kala duwan sida uu dhacay qaraxaasi baabuurka isqarxiyay nooceebuha iyo say ugu suurto gashay in taliyaha booliiska gobolka Banaadir oo wata ilaalo badan in halkaas qarax lagu eegto qaraxii halkaas ka dhacay oo dad badan qasaare uu ka soo gaaray barnaamijka ayaad ku maqli doontaan falaqaynta wararka qodobada kale ee aan idin hayana waxaa ka mid ah midowga musharaxiinta oo samaysanaya isbahaysiyo kala duwan iyaga oo hadda si toos ah u kala biirmay oo iyagu hadda ay samaystaan kudla kala duwan oo ay rabaan nin walba inuu isbahaysi samaysto qodobada kale ee aan idin hayana waxaa ka mid noqon doona ururka Taliban oo qabsaday inta badan gobolada dalkaasi Afghanistan maxaa ku dhacay dawladii dalkaasi Afghanistan iyo ciidamada Mareykanka oo iyana halkaas ka baxaya qodobada arrimaha bulshada ee social media-hana waxyaalaha aan idinku hayana waxaa ka mid noqon doona markaasay ruuxaysaa markaasay haddana dambeedka isaga qabanaysaa markaasay wareejinaysaa gabdhahuna wuxuu kaga dhacaa laba waa Sheekh Kenyawi oo uga digay gabdhaha Soomaaliyeed inay joojiyaan waxyaalaha ay TikTok ay ku dhexneekanayaan iyo waliba dadka aan ugu jecelahay social media marka la fiiriyo TikTok oo aan idin hayo ajaayib sheekhow waa gabadha ku caanka ayaan idin hayaa qodobada kale iyo qodobo kale ayaan ku share dhahdo page-kayga iyo waliba YouTube-kayga subscribe aad soo dhahdo aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu tagaya magaalada Galbehaare si weyn lagu soo dhaweeyay iyadoo bulshadaasna maanta aysan u kahayn ra'iisul wasaaraha ayaa kala hadlaya bulshadaasi Soomaaliyeed ee gobolkaasi Gado inay dadajiyaan doorashada iyadoo oo maamulka Jubbaland uu sheegay in ay ku faraxsan in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu soo boqdo Jubbaland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa halkaas galabta ka bixi doona isagoo oo magaalada Muqdisho ku lama doona maalmaha soo socdana tagi doona halkaasi waxa la soo sheegay in odayaasha dhaqanku ay soo gudbiyeen ama ra'iisul wasaaraha ay u gudbiyeen guddigii isku dhafkaha ee dowladda federaalka ee ka socda Jubbaland oo la sheegay in soo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hadda waxa la sheegayaa in uu wado kulamo kala duwan oo dadka Soomaaliyeed ee gobolkaasi kala degan oo ugu sheegay in doorashada si habsami leh uga qaasan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo magaalada Kismaayo kula dardaarmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegay in uu doorashada Soomaaliya si cadaalad uga shaqeeyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu isaguna maalmahan soo socda uu gobolada kala duwan ee Soomaaliya booqdo maamul goboleedyada iyadoo la sheegay in uu ku horeyn doono magaalada Baydhabo ee gobolkaasi Bay qodobada qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho maanta ayaa waxa la soo sheegay in qasaare kala duwan oo ka jiro waxaa la soo sheegayaa in 9 qof ay halkaasi ku dhinteen oo la sheegay in ay ku jiraan dad rayida aan waxba galabsan baabuur saarnaa taliyaha booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qarole ayaa lagala beegsaday halkaasi isagoo ka soo baxay cusbitaal Madiina kuna sii jeeday iskooska Banaadir baabuur Serif ayaa la sheegay halkaasi inuu isku qarxiyay qasaare kala duwan ayaa soo gaaray qof la socday dadkii halkaasi marayay oo bajaajada ayaa warbaahinta uga hormay inta markaan soo gooyay iskoos aan soo gooyay ayaa waxa dhacday intaan gaarin meesha ciidan intaan gaarin ayaa waxa dhacay qaraxaasna oo qarax zaa'id ah micnaha inta xataa mooto xataa waa waxay noqotay way gilgilatay waan istaagay waa qaraxaasi in uu
dadka qaraxaasi ku dhintay waxaa ka mid ah gabadhana lagu magacaabo Canab Warsame ayaa waxaa la sheegayaa oo gabadh aqoon-yahanada ahayd Allahu naxariista ayaa halkaasi ku geeriyootay dad badan oo shacab ah ayaa waxba galabsan ayaa halkaasi ku dhintay. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiq Aadan Doodisho ayaa waxa uu sheegay in qaraxii halkaasi maanta ka dhacay ay dad badan oo rayid aan waxba galabsan ay wax ku waxyeeleeyeen. Hal askari oo ciidamada booliiska Soomaaliya ka tirsan ayaa la soo sheegay halkaasi inuu ku dhintay iyo waliba laba kalena ay ku dhaawaceen. Taliyaha booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qarolo oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu nabad qabo waxna uusan qabin. Dadkii halkaasi maanta ku dhintay ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho iyagoo kuwa dhaawacan lagu daawanayo cusbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. midowga musharaxiintana waxa ay shaaca ka qaadeen inay samaysteen kudlad musharaxnimo oo iyagu hadda ay kala mirmeen. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba ninka lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la sheegay hadda iyagu inay isku kudlad yihiin iyadoo Sheekh Shariif, Sheekh Axmed Daahir Maxamuud Geele iyo Cabdikariim Xuseen Guuleedna iyaguna hadda ay meel gaar tagan yihiin dowladaha Imaaraadka Carabta iyo waliba dowladda kale Kenya iyo dowlado kale oo Carabeed ayaa taageeraya musharaxiinta qaar ay taageerayaan barleeyahay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in suuqa doorashada uu ka yahay dhexdhexaad. Qodobada wararka dibaddana haddii aanu ku soo qaadano ururka Taliban ayaa qabsaday dhammaan inta badan dalkaasi Afghanistan. Gobolladii dalkaasi ayaa soo qabsanaya ciidamada Mareykanka intooda badan ay ka baxayaan gobolladaasi Mareykanka. Ururka Taliban ayaa waxaa la sheegayaa inay qabsadeen magaalooyin waaweyn oo 36 gobol ee ka mid ah dalkaasi ayaa la sheegayaa inay dhowr gobol ay qabsadeen iyadoo oo dowladda Afghanistan ay sheegtay inay tahay xeelad dagaal oo ay rabto in ay uga leedahay inay abaabul ku sameyso oo ay dibna uga qabsato ururka Taliban ee qabsaday dalkaasi Afghanistan gobollo ka mid ah. Madaxweynaha Afghanistan ninka lagu magacaabo Ashraf Ghani ayaa waxa uu sheegay inuu ciidamada daba habeen ku soo doono kadib markii ay baxaan bishan soo socota ciidamada dalkaasi Mareykanka ee muddada 20 sano ku dhow ku sugnaa dalkaasi Afghanistan. Qodobada arrimaha bulshada aan intaan ka bixin waxaa ka mid noqon doona Sheekh Kenyawi oo gabdhaha Soomaaliyeed ugu baaqay inay joojiyaan TikTok iyo anshaxmada ay ku dhexneekanayaan. Waxa uu sheegay inay haysato caqabado kala duwan oo gabdhaha Soomaaliyeed haysta taasoo looga baahan yahay inay ilaaliyaan anshaxooda iyo diintooda. Sheekh Kenyawi aan dhageysanay. daawa loo diraa tuulada aan ku noolahay aniga Sheekh Kenyawi waxa uu sheegay in gabdhaha Soomaaliyeed ay joojiyaan oo ama ay rabaan in ay TikTok ay ku dhexneekanayaan ay joojiyaan. intaas waxaan ku soo afmeernaa qodobadii falanqaynta wararka ee aad kala socoteen Abshir Joker channelka aan ku leeyahay YouTube-ka iyo waliba page-keena Abshir Jaamac Joker. haddii aad ku cusub tahay page-kayga iyo YouTube-ka waxaan ku leeyahay soo raaxda hore noo soo tana waad ku mahadsantahay nabadgelyo.